shirweynaha hay'adda dhowrista tayada iyo warshadleyda ee faa'iidooyinka heer tayadyada u leeyihiin kor u qaadista ganacsiga iyo maalgashiga marshada Berbera ee loo qabtay magaalada Hargeysa waxaana shirweynaha ka soo qayb galay xubno ka socday warshadleyda dalka ganacsato mas'uuliin ka socday hay'adda DAI iyo sidoo kale agaasimaha guud ee hay'adda dhowrista tayada Jamhuuriyadda Somaliland ugu horeyn waxa shirkani iyo ujeedooyinka faahfaahin ka bixiyay agaasimaha guud ee hay'adda dhowrista tayada Jamhuuriyadda Somaliland Xamse Sultan Aadan iyo sidoo kale Commissioner Faisal Maxamed oo kamid ah xubnaha gudida hay'adda dhowrista tayada kulankani runtii waxa uu ku saabsan yahay oo u dhaxeeya hay'adda dhowrista tayada Somaliland iyo warshadleyda Somaliland waana kulan aynu kaga faa'iideysanayno heer tayeedka faa'iidooyinka uu leeyahay qaranka iyo warshadleydaba heer tayeedkaasi oo runtii aynu soo jeedin doono presentationno sidoo kale waxaan u mahadnaqaynaa mas'uuliyiinta ka socda hay'adda DAI waxa kaloon u mahadnaqaynaa agaasimaha guud ee isagana tamarta maadaama aanu nahay hay'adii dhowrista tayada ee iyadu wixii dalka soo galiyay iyo wixii ka baxayba qaabilsanayd qaraarada aanu soo saaraynaa si aanay marnaba u noqon wax dusha uun ka yimi laakiin ay noqdaan wax aanu isla meel dhigno ganacsatada oo gudiyan naga dhaxeeyay ka bacdi marka aanu isla jeexjeexno si qaraarka iyo waxa aynu soo saaraynaa uu noqdo fulintoodu ay inoogu fududaato oo cidda fulinaysa ganacsatadii maadaama ay tahay ay qayb ka noqoto qaraarkii runtii la qaadanayay ganacsigu waxa weeye waa kobcinta dhaqaalaha dal horumarkiisu wuxuu ka bilaabmaa ganacsigiisu markuu koraba dhaqaalihiisii baa kora waxa kora dalka shaqaaleyntii baa korodha ganacsigu waa lafdhabar siyaasadda qarankan u taalla oo ah mar walba in la kobciyo ganacsiga kobcintaas oo ah mid dalka gudihiisa iyo mid inuu ka tallaabo ganacsigani xuduudaheenna oo u gudbo dowladaha aynu jaarka nahay waa siyaasadda guud ee qarankan u taalla kaasoo aan annaguna siyaasadda dowladda ka mid nahay halka nagaga aadani waxa ay tahay sidii aanu u fududayn lahayn marka uu ganacsigeenu xuduudaha ka gudbaayo geesta kale waxa halkaas ka hadlay agaasimaha guud ee komishiga tamarta Maxamed Maxamuud Cabdi Malow iyo sidoo kale Khalid Xaaj Xasan oo ka socda hay'adda DAI waxayna ka warameen isla markaana ku dharaadeen shirkan iyo faa'iidooyinkiisa carqaladaha iyo caqabadaha ka hor imanaya waxa ay noqonayaan in baadhistii tayada si aanu taa u fududayno oo wixii nagaga aadanaa qaranka sidii ganacsigeenaasi u gudbi lahaa waxa aanu xiriir wanaagsan la leenahay dawladaha jaarka annaguna hay'ad ahaan waxaanu diyaar u nahay oo aan ku taageerinaa sidii ganacsatada iyo dawladdu wada hadal u gali lahaayeen lagu fulin lahaa standardska imika la diyaar gareeyay waa kulan aynu arkayno inay ka soo bixi doonaan midho faa'iido leh kor u qaadida ganacsiga waddankeena oo haddaynu samaysano heer tayadyadaasi uu ganacsigeenu ka gudbi doono xadka Somaliland korna u qaadi doono wax soo saarka warshadleyda waddanka ganacsigana uu horumarin doono